xisbiga wadani laantiisa Finland ayaa xaflad soo dhaweyn u sameeyay taageerayaal ku soo biiray. xafladan oo taageerayaasha xisbiga iyo madaxdoodu ka soo qayb galeen ayaa ugu horeyn waxa hadallo soo dhaweyn ka yidhi qaar ka mid ah madaxda xisbiga, waxaana yiraahdeen soo dhawaada xisbiga wadani waa xisbi qarankooda leeyahay, waa xisbi aynu rabno inuu xukuumadeenii hore halkay soo gaarsiiyeen Somaliland inuu ka sii ambaqaado oo ka sii kordhiyo. haddii xisbiyada ay soo galaan labadaba way ugu faa'iidaan. reerka idhalay aniga iyo reer Axmed Dagax labadaa reer hadday xisbiyada soo galaan labadaba way ugu faa'iidaan. marka waxaan leeyahay ilmaaftiyaal aamina bahasha kaalaya wallahi markasta waxaa siyaasadiisa ku qoran inuu taageerayo dhalinyarada iyo dumarka. waa labada ugu badan ee xisbiyadu had iyo jeer inta lagu guuro oo kaambeynka lagu galo haddana hadhowto banaanka lagaga tago. waxaana jeenayaa sida ku xad xeerka siyaasiga xisbiga wadani 30% inay ku leeyihiin dhalinyarada iyo haweenka. hadduu tartamo durduro taw ku wada siiyo marma wada tagaan wuxuu sii oran tiigso ka hore wadaniyo wadad kala tagtaan maanta ay buuxdo tamartiinu mar kale oo aad ka taag darantiin baa la teebayaye. magaalada Ari Cadeeye ee lagu caleema saarayo suldaanka beesha reer Fiqishini hambaliyaan halkaan uga dirayaa anoo ka wakiila dhammaanba xisbiga wadani laanta Finland. waxaan idinka gudbinayaa salaan diiran saad u dhantihiin. berritaa shirkaasi qabsoomaya caleema saarka horaa loo doortay suldaanka. waa beeldhan oo xisbiga wadani ku soo biirtay. dhanka kale waxaa afka taageerayaasha ku hadlayay Yuusuf Muuse Dhagadeero, waxaanu yidhi hadaladiisii waxaanu aad iyo aad idinka mahad celinaynaa sida sharafta leh ee wanaagsan ee walaalnimada ah ee kalgacalka leh kalsoonida leh islaamnimada leh wada dhalashada leh ee xisbigeeda lagu soo dhaweeyey. taageerayaasha xisbiga ku soo biiray sida dee laga dhawaajiyey ma aha uun gobolka Togdheer ee waa gobolka Awdal, Maroodijeex, Togdheer, Saraar, Saaxil, Sool iyo Sanaag. toddobaadkii hore uunbay ahayd markii lagu wareejiyay gudoomiyaha cusub ee laanta Finland Isxaaq Cabdi Guuleed oo uu ku wareejiyay gudoomiyihii hore Cabdiraxmaan Cartan. aadan Yuusuf Cismaan, Home Cable TV, Finland.